Dowladda hoose degmada Lascanood ayaa bilowday Banaynta iyo dayactirka wadooyinka xidhan ee magaalada Lascanood. Wadooyinka maanta laga baneeyay waxa kamid ah wadada xabaalaha taasoo ay wadooyinka halbowlaha oo ah magaalada Lascanood ay jareen gaadiidka ciidda ka gura magaaladaasi. Maayirka degmada Lascanood Cabdi Xuseen Tarwale iyo qaar kamid ah ganacsatada ayaa sheegay in wadadan ay tahay mid muhiim u ah bulshada loona baahan yahay in la ilaaliyo. Waxayna ugu baaqeen gaadiidleyda iyagu ka ganacsada ciidda inayna ka gurin wadadan talaabo sharciyana laga qaadi doono. maanta saadniina ku aragtaan waxaanu joognaa togi xabaalaha saadniina ku aragtaan togan dad baa qoday oo ka xidhay xabaalihii magaalada kala xidhay maanta oo bishu tahay 19 bishii 11aad 2017 waxaan halkan uga soo jeedinaynaa dadweynaha ku nool magaalada Lascanood gaar ahaan dadka cagafyada leh iyo dadka iskurigooyin kale iyo dadka xogstada ee ciidda raraba in maanta laga bilaabo halkan qofkii lagu qabto iyo gaarigii lagu qabto iyo cagaftii lagu qabto in la xiri doono ganaax culusna ay mutaysan doonaan taliyiisa lagu nala joogaa iyo ciidanka ammaanku dhamaantoodna amarkii way qabaan qaarkood waxaad arkaysaa iyagoo niiska qodaya xabaalaha laftigoodii oo lafihii meydku u muuqanayo nimanka iskarogooyinka wata waxaan leenahay niman Ilaahay ka baq oo hadeedna sharaf dhowranayn oo karaamo dhowranayn oo adnan cisi dhowranayn Ilaahay ka baq 2 mitir baa la idinku xiraynaya waxa laga yaabaa in wadadaas oo aad goyseen oo qodan aad dhimataan oo meel meydkiina la mariyo la waayo waxaan leenahay niman Ilaahay ka baq oo isxil qaama oo xabaalaha iska daayaad qodaysaan Ilaahay risqiina banaanadaas u idin dhigay maayirka degmada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan la leenahay Ilaahay ha ku barakeeyo wixii hiiliyo aad u baahatana waan kula garab taaganahay waadna mahadsantahay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa maayirka degmada Lascanood Cabdi Xuseen Tarwale oo 6 saaca ku soo jarmaaday oo runtii urka taalada iyo naxdintiina haysay naga biyay waanu ku faraxsanahay sida uu u habeeyay waana uga mahadcelinaa Ilaahay ka abaal mariyo adiga iyo dawladda hoose in adeer qolada qashinka hudheelada laftooda waan uga digaynaa hudheelada waa u digaynaa waxaan uga digaynaa magaaladeena hudheelada la feeynay halkan baanu hadda soo marnay waxa taa la baastada iyo hadhaaga iyo bariiska hadhaaga ayaa la fihi war qashinka meel baa loo asteeyay oo dawladda hoose iyo UDD iyo goolbaa geeya war qoladina hudheelada Ilaahay ka yaabay ka daayay wadada xabaalaha lafaha iyo qurunka iyo qashinka soo dhigaysaan bal kaalay oo eega ma cirka layna kaga soo tuur Barkad Cumar Axmed warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Lascanood